السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا وما تسنتهين مقال كان وحن ربعنا ندي كل وذاقو ورئيسي أن لي لنا يو محمود أو كنا القبل كان مينيسوتا محمود ويل أي المأذيريهين يدن يرفر بدن أو صوماليد أو لحدا كبدن أي وحي كحريهين ودن كالسعودي عربية دن يرداسي قاركود دل أي لغو حكومي محيطة سببتا qaarkoodna waxaaba la bilaabayba in dilkaasi lagu fuliyo arrimahaasi ayaan rabaa maxamuud inaan ka wareysto meelo badanna uu gaarsiiyey xitaa dowladda federaalka safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Sacuudiga muddo sanado ah ayayna xiran yihiin dhalinyaradan Soomaalida ee wadanka Sacuudi Carabiya ay ku xiran yihiin soo dhawaad maxamuud soo dhawow bal waxaad warbixin naga siisaa dhalinyaradan qaabkee loo xiray goorma ayaa la xiray maxay dhan yihiin warbixin naga sii والعلم وأد بوما سنتهاي أد بأنك أجمع العلمي فرصة أضمانتي أنيق يودك الصومالية بنوسي سينا وهالكان جنال كان عن قصة مغنى أما هذا الكي مكباهه فرنتي يضنا معركتي يودك الصومالية بدهان جاته أنت أسبع دقيقة ولا هذا سؤال شان كسر دوادو دنيرة الصومالية ودنيرة وقتية كل دوان لقبتي حالات كل دوان لغو قبتي ودك السعودية أي كحرينيين لكن ضدك عن هذا سيدا قارك doonayo inaan ummadda Soomaaliyeed fariintooda iyo orahdooda gaarsiiyo waa dad la yiri waxa lagu qabtay muqaadaraad ayaa lagu qabtay ama wuxuun balwad la xiriirta waa lagu qabtay oo ay maaragtay ama ka baayac mushtariyeen ama safiinayeen sanado kala duwan laakiin celcelis ahaan noqonaysa 6 sano ilaa 7 sano inta u dhaxaysa maxay yihiin muqaadaraadkaasi haddii aad faahfaahiso majaada ama wax kale maxay yihiin muqaadaraadka lagu qabtay si gaar ah leeno kagama waramin laakiin waxay u badan tahay maadaama dadka Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan qaadka meel kasta ay joogaan badana adduunyada meel ay ku joogaan waxay u badan tahay in qaad uu yahay balwadaas ama waxaas maaragtay daraagiska ah ee lagu soo eedeeyay qaarkoodna laga yaabo inaysan saameyn ama ganacsi aysan ku lahayn laakiin ujeedadu waxa weeye waxa ay lagu soo eedeeyay waxa weeye waa qaad marka ma cunayeen mise waa ka ganacsanayeen sidee ay noqonaysaa adigu ilma adeerka ayaa meesha ku xiran haddii aad xiriir la samaysay isagu shakhsiyan muxuu sheegayaa goorma ayaa isaga la xiray isagu hadda muddo 6 sano ayuu halkaa ku xiran yahay soo marka 2018 bilowgeedii ayaa la qabtay waxa kaliya uu noo sheegayna waxa waaye in eedaas lagu soo eedeeyay inuu isagu ku lug lahaa maadaama uu telefoon ka hadlayo meeshuna ay dad badan tahay oo maaragtay wax gaar iyo warbixin gaar uusan la siin karin waxa weeye waxa lagu soo eedeeyay wuxuu noo sheegay inay tahay in waxaas ay ka baayac mushtariyeen oo ay maaragtay si maaragtay aan sharci ahayn ay ku galnayeen Sacuudiga gudihiisa laakiin ma aha war maaragtay aan xaqiijin karno laakiin eed ahaan in loo soo jeediyay ayuu noo sheegay laakiin anagu mana joogin cadaymihii maaragtay markii maxkamadda la geeyay lagu geeyay sanna looma siin inaan si gaar ah intaan ula fariisano aanu dhageysano codkiisa ma sidoo kale fursad ma leedin siiyay inaad qareen u qabataan ama lawyer maadaama maxkamad la geeyo oo dadkan la xukumay maya nasiib darro arrinta ma aanan helin isaguna xaq uma uusan helin waxay ahayd xaq uu lahaa iyo xuquuq uu lahaa inuu helo lawyer matala dambigiisa loo akhriyo waxa uu iskaga difaacayana isaga iyo qareenkiisu ay ka sheekaystaan marka fursada ma uusan helin noomana ogolaan inaan arrinta u samayn karno oo u suurtagelin karno waa tahay waxaad sheegtay guud ahaan dhalinyaradan inay 60 kor u dhaafayaan laakiin ay kala duwan yihiin qaarkood dil lagu xukumay qaarkood xabsiye ay jiraan bal noo kala qaad sidee kala yihiin dhalinyaradan maadaama arrintan in muddo aad ka warhaysay cilmiyo in dooran ku dhex jiray oo aan isku dayay inaan dhalinyarada tan xaaladooda wax ka ogaado tiradu intaa way ka badnayd qaar la cafiyo la sii daayay iyo qaar xiran intuba way jiraanin qaar toobasho lagu xukumay way jiraan marka tiradu almost 100 iyo wax dheer bay ahayd laakiin tirada hadda xiran oo la yiri waxay ku xukuman yihiin dil ama daldalaad bay ku xukuman yihiin waa 63 dhalinyaro ah si gaar ah marka 45 ayaa isku xaalada oo xabsi ku jira gaara oo iska warqabto oo maaragtay dad kala war hela ah annagana markii iyagu kala war helaanin warkooda dadka ehelada soo gaarsiiya qaar Soomaaliya jooga iyo qaar meelo kale joogaba dadkaas haddana 6 qof oo ka gaara ayaa hadda labadii bari u dambeysay waxa jirta in safaaradda Soomaaliya loo gudbiyay magacyadooda oo 6 qof
la doonayo in lagu fuliyo daldalaadii horey loogu xukumay sanadkii aan soo dhaafnay bishii May. marka dhalinyarada saasi u kala maaragtay kala qaybsan yihiin oo qaybo meel u joogta xaalado kala gaarana ay ugu sugan yihiin. lixdan haddana kuusii kala qaado waxaa jira inan 3 beri ka hor jeelkii ku jiray laga saaray, dhalinyaradii ula joogana laga saaray. markii la saarayay dhalinyaradu maadaama ay xaaladooda ka warqabtay oo ay dil ku xukunaayeen, waxay isku dayeen inay ninka warkiisa helaan. nasiib darro ma aysan helin markii hore, laakiin waxaa loo cadeeyay markay safaaradii la xiriireen iyo eheliyadiiba in ninkaas la doonayo in dilkii toogashada oo horey loogu xukumay dhammaantoodna ay ku xukunaayeen 63 qof iyo 45 gaarka u wada xiran in la doonayo in lagu fuliyo. marka inankaas saaki ahayd in daldalaadii lagu fuliyo, saaki wuu baaqday intaan ka warqabo, laakiin waa arrin iyana maaragtay dhiladeeda leh oo hadda taagan. marka dhalinyarada xaaladooda waa dhalinyaro noocaas oo sidaas u kala qaybsan. marka waxaa leedahay xilli kasta ayaa dilka lagu fulin karaa maadaama lagu xukumay arrintan. safaaradda maadaama aad tiri 6 qof ayaa lala baxay, magacyadoodana loo gudbiyey, lana sheegay in xukun dil ah lagu fulinayo. arrintaasi safaaradda ma kala xiriirtay adigana sudahantaada maadaama xiriir aad la leedahay, maxayse kuu sheegeen? muddadii barnaamijkani uu dhacay oo sanadkii hadda soo dhaafnay May, waxaa jiray xiriir safaaradda iyo dowladda Soomaaliya intaba aan kala samaynaynay hel ahaan dadka xiran iyo sidii laga yeeli lahaa. dadkaas waa dad Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed, dalkii ay ka tageen waa dal burbursan aan fursadina aan u helin inay bartaaneen sharciga iyo wuxuu yahay. waxa lagu soo eedeeyay iyo meesha ay ku xiran yihiin meel wadanka ka baxsan ay tahay. waxaan isku dayay in aan wixii aan ka geysan karo aan ka geysto in dhalinyaradaasi ay xorriyadooda dib u helaan oo xataa ugu yaraan haddii ciqaab ay marayaan in loo fiiriyo muddadii dheereed oo ay xirnaayeen iyo wixii maaragtay ay soo muteen in maaragtay bal wuxuu looga fudaydiyo dembiyadoodii. marka safaaradda xilligaas xiriir noo soo bilowday, dowladda Soomaaliya xildhibaano ka mid ah xilligaas noo soo bilowday. intaba waxaa jirtay in hawshaasi ay hawl ahayd laga wada shaqaynayay. nasiib darro dhalinyaradii hadda waxa ay ogaadeen waxa weeye inaan hawshoodii wax weyn laga qaban, in la dayacay, inay xabsigii ku jiraan. ninkii u horreeyana ay barosayskiisi uu bilowday daldalaadii lagu fulin lahaa oo dhakhtarkii la soo mariyey. ujeedadu tahay maaragtay in saacad walba ay dhici karto dilkiisu uu dhici karo. marka walaal cilmi, waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba u sheego dadkan waa dad Soomaaliyeed, meesha ay ku xiran yihiinna waa wadan ka baxsan Soomaaliya. waxay xaq u lahaayeen in dowladda Soomaaliyeed sidii aan ku wada hadalnayba safaaradda iyo mas-uuliyiinta kale aan ismaqalnayba in dadkaas dhibaatadooda si dhow looga warhayo, eheliyadiina looga warbixiyo, iyaga laftigooduna ay u ogaadaan haddii la dilayo inay kuwii ay jeclaayeen iyo dadkoodii fariintii ugu dambaysay ay u dhaafaan. marka arrintaas nasiib darro safaaradda waxay ii sheegtay in liiskaasi jiro. shaqaalaha qaar ka mid a la xiriiray safaaradda in liiskaasi jiro 6 qof oo safiirka loo soo gudbiyey, laakiin konsuulku uusan ka warqabin hadda si raadinayo inuu maaragtay arrintaas uu helo oo maaragtay uu ballan degdega ka qabsado wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga. iyana kolba weli may suurta gelin, laakiin Soomaalidu waxay ku mahmahdaan dhiciska inta midida loo soo sido dhintaa. marka arrintaas waa arrin very alaabtiya oo hadda taagan oo maaragtay dhammaanba waxay culays ku haysaa dadkii eheliyadda ahayd iyo dhalinyaradii maxaabiista ahayd oo meesha ku jiray intaba. dhinaca kale malaan ismaqalnay qaar ka mid a xildhibaanada waxay ii sheegeen in ay la kulmeen wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha dibadda, labadabana ay kala hadleen arrinta dhalinyaradaas ay u gudbiyeen. iyaguna ay dhaheen waxbaan ka qabanaynaa. waqti hadda laga joogo ilaa 4-5 bilood 6 bilood meelahaas oo la qorsheynayay in wasiirka cadaaladda uu tago Sacuudiga oo bal dhalinyarada xaaladooda wax laga soo ogaado, laakiin nasiib darrada dhacday ay tahay in aan weli arrintaasi suurtagelin oo safarkii wasiirku halkaa ku tegi lahaa aysan suurtagelin. dhinacii kalena dhalinyaradii ay meeshii weli dibane ku tahay, xukunkiina fulintiisii ay hadda ku bilaabatay oo barosayskii bilowday. marka arrintaas ayaan ka ogahay, intaasaan ka ururiya. dadkaasna waxay u muuqdaan dad runtii dowladdoodii iyo dadkoodiiba ay dayaceen. waa tahay maxamuud, waxaad sheegtay in xildhibaano iyo safaaradda ku leeyahay dowladda Soomaaliya ay ku leedahay Sacuudiga aad arrintan gaarsiiseen.
ma isleedahay arrintan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa ay gaartay maadaama hadda wasiirkii arrimaha dibadda ma midkan hadda jooga inaad gaarsiiseen iyo kii ka horreeyaba mid uu yahayba ma isleedahay madaxda ugu sarreysa dadkan arintoodu waa ay gaarto oo waa la gaarsiiyey mase inaysan gaarin ayaad u malaynaysaa waxaan hubaa oo aan xildhibaan aftiisa ka maqlay in ay la kulmeen wasiir axmed macalin fiqi ay u gudbiyeen fariinta wiilasha iyo arrintaas uu u sheegay galkaasi inuu yaallo xafiiska madaxweynahana aan ku wargeliyey isagaa kule xildhibaanada madaxweynaha waa ku wargeliyey madaxweynuhuna wuxuu iga ballan qaaday in aan barnaamijkaas si dhow uga shaqeeyo wasiirka cadaaladuna oo xaggaa tago aniga laftigeyguna aan tegi doono buu markaa wasiirku xildhibaanada ku yidhi si gaarana innaga fursad noo tahay oo credit gaarana siinaysaa ee doonayna inaan dhallinyarada Soomaaliyeed wixii aan ka qaban karno aan ka qabanno laakiin waxay u muuqataa arrintii inay af un ku ekeyd iyo shirka markaa la wada joogay aan wax badan laga qaban marka waxaan ku cadaynayaa in xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska wasaaradaha ku shaqada lahiba ay ka warqabaan dhallinyaradaas oo buuqoodu maaragtay ama arrintoodu ay taagneyd waqti hadda kusii socdaa labadii sano madaxa la sii gelaya sababtoo intaad xukunka ku dhicin ka hor waxaa jiray khayraadhaan kasoo gudubtay waxaa jirtay markii hadda la xukumay oo bishii May oo sanadkii aan soo dhaafnay ilaa bishii June July inay jirtay arrintoodu marka waqtigaasoo dhan waa arrin soo taagnayd bay ahayd oo warbixinteeda la hayay oo xafiisyada dowladduna ay ka warqabeen waa tahay maxamuud dhallinyaradan markoodii hore maqaab tahriibahay ku tageen waddanka Sacuudi Carabiya oo inay ka soo shaqaystaan miyay ku tageen markii la qabqabanayay mase dad hawshan kaliya hadda lagu qabtay oo muqaadaraadka ka ganacsanaya ahaayeen sidee markii hore ay Sacuudiga ku tageen dhallinyarada intaad ka war hayso intaan ka war hayo dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta adduunka ku nool yihiin waxa ay waddankooda uga tageen inay wax soo kororsadaan oo meelaha ay tegayaan ay qoysaskoodii iyo dadkii ay jeclaayeen wixii ay kasoo tari karaanna ay kasoo taraan iyaguna nafsadooda maaragtay shaqo iyo uga helaan in wax kasoo galaan marka inta aan hubo anigu walaalkay ama inadeerkay ayaan ka hadli karaa waxa uu u tegey waxay ahayd inuu halkaas kasoo shaqaysto dadku dhallinyarada marka carabta la tago qaar xijiya gura iyo qaar xoolo dulaale iyo qaar maaragtay si kale u shaqaystaba intaba way noqdaan laakiin haddana noloshu sidii aad u malaynaysay marna kuu noqon mayso oo waxaa dhici karta mararka qaar wixii aad kusoo tala gashay waxaan ahayn inaad la kulanto marka dhallinyaradaasi way kala duwan yihiin meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah iyo xataa wadamada deriska ah oo intaan hubo dowlad deegaanka kolba cid baa kaga jirta waxay u tageen halkaa inay wax soo kororsadaan oo ay kasoo shaqaystaan oo ay dadkii ay ka yimaadeen wax ka taraan waxa geysana baahiday ahayd wax kasta oo shaqo ah oo ay ka qabteen meeshaasna sharci darro ha ahaato laakiin waxa u geeyay waxay ahayd baahi inay wax ka kororsadaan marka aan iyagana si guud u difaacayn oo aan dembigooda ka dhaqayn haddana waxaan qiyaasayaa oo aan qirayaa inay tahay wax runtii baahi iyo meeshii ay ka yimaadeen iyo dhibti ka jirtay ay ku kaliftay wax kastoo maaragtay ka yimaada marka ay habboonayd inay fursad u helaan inay mar kale noloshoodii ay dib u bilaabaan cagahoodana dib iskugu taagaan marka dhallinyaradaas meesha waxay u tageen inay kasoo shaqaystaan waxayna u badan tahay inay sharci darro ku tageen oo ma jirto baasaboor Soomaaliya oo Sacuudiga inta lala tago si fudud looga shaqaysan karo oo qof normal ah uga shaqaysan karo qof aan profession ahayn oo markaa maaragtay waxa looga maarmi waayey qabanaya mooye qof kaleeto inuu tegi karo ilama ah waa tahay yarkan ilma adeerka aad tihiin sanadka uu tagay ma garanaysa adigu sanadka uu tagay Sacuudiga sida caadiga aniga 2014 baa iigu dhameysay dhammaadkiisii waxaan hubay inuu 15kii tagay meesha la yiraahdo Yaman inuu dhulkaas maaragtay shaqo u tagay horena uu u tegi jiray Cumaan iyo Yaman labadaba oo si caadi uga soo shaqaysan jiray dadna waddanka dib ugu soo noqon jiray isagoo oo laga yaabo inuu sanadkaa wax fiican ka soo shaqaystay marka waxaan qiyaasayaa inuu 2015 mise 16 meelahaas tegey waddankaas laakiin aniga warkiisa markuu igu soo dhacay waxay ahayd 2018 markii la xiray waa tahay maadaama safaaradda Sacuudiga laba goor saddex goor meelahaas aan ismaqalnay oo ila soo hadlay oo xabsiga igala soo dhaxadlay laakiin hadda inta xukunkan ku dhacay oo kasoo bilaabaysay bishii May fursad iskuma aanan helin imana uusan soo wicin laakiin dadkii waddankii ayuu wacaa oo intii gaarsiiya marka iyaga ii soo gudbiya anigana marka safaaradda maadaama xiriir aad la leedahay
ilaa iyo markii la xukumay ilaa intii ka horreyso dacwadoodu ay socotay safaaradda ma loo ogolaaday dhallinyaradan inay xabsiga ku booqato ma soo arkeen mase ma jirin wax ogolaashaha oo loo siiyey waa ka wada hadalnay safaaradda sida caadiga ana waxaan dareemayaa in safaaraddu dhallinyarada wax badan ay u qaban kartay aysan u qaban markii aan ka wada hadalno waxay noo sheegayaan in ay iyagu doonayaan in dhallinyaradan loo kaco in dhallinyaradan wax loo qabto ayna diyaar u yihiin laakiin haddana dhallinyaradii markay kula soo hadlaan oo xabsiga kaala soo hadlaan waxay kuu sheegayaan inaan wax loo qabtay cid u timi jirin waxaan hubaa oo qof safaaradda ka shaqeeya ii sheegay oo aanan ku been abuuranayn inay safaaradda dhallinyaradu la soo xidhiidhay ay ka cabanayeen in haddiiba ay xiran yihiin oo waqti ku socdo in loo ogolaado inay wax bartaan oo ay maaragtay si hadhowta noloshooda isku bedesho oo afkii carabiga iyo diinta wixii ay ka baran karaan ay ka bartaan waa loo ogolaaday buu igu yiri inay maaragtay marka fursaddaa helaan laakiin waxaanan hubin waa loo ogolaadadii in ficil lagu daray oo ay dhallinyaradii xabsigii ay wax ku bartaaneen oo jaaniska heleen intaa waxaa sii dheer wixii kale oo noloshooda ku saabsan oo inay qareen helaan in maaragtay dembiyadoodu say u kala culus yihiin iyo say kale yihiin maaragtay loogu gurmado oo xataa haddii aan dhaqaale loo heli karin ehliyadii iyo dadkii kaleo diyaarka u ahaa inay maaragtay wixii ay ku saacidi karaan ay ku saacidaan inaan loo ogolaan baan dareensanahay si saxana aan looga warbixin sababtoo ah mas-uuliyaddu waxa weeye qofka haddaadan wax tari karin waxna u qaban karin inaad ka warbixiso oo tiraahdo ruuxan awooddeeda way ka badan tahay dadkaani dad maaragtay aan caawin karno maaha sababtoo ah dembigaanoo noocaasa lagu haystaa broseskii ama wixii ahayd nidaamkii ahayd in loo marana waa loo maray way heleen qareemadii si wax ahayd inay uga warbixiyaan marka dayacaadda ugu weyne waxay ka jirtaa safaaradda dhallinyaradaasna waa run oo dee cidna ankiri mayso oo ma odhanayso dowladdu waxaynu nahay iska tabar daran laakiin micnuhu waxa weeye meel aan ka muuqo ama ka maqno waxay ahayd in safaaraddu ay wax badan maaragtay dhallinyarada xaaladooda kala socoto waa tahay hadda wax weyn oo maaragtay meesha ka jiraaba aysan jirin waxay u joogaan ay tahay inay maaragtay dowladdii iyo dadkii soomaaliyeed ay matalaan bal kuwaana ugu baahi darane wixii ay ka qaban karaan xaaladooda inay ka qabtaan bay ahayd waa tahay maxamed waxaad sheegtay dhallinyaradu inay la xiriiraan dadkooda eheladooda soomaaliya ku sugan maadaama aan filayo in gobollo kala duwan ay ka yimaadeen dadka ehelkooda ah oo soomaaliya ku sugan ma iska warqabaan oo dhallinyaradan meesha ku xiran wax xiriirahoo dadka ehelku ay leeyihiin ma jiraan haddaysan leeyihiin ma isku dayeen inay intay baxaan ay dowladdii muqdisho tagaan oo ay la kulmaan madaxdii dowladda oo arrintaasi cabashadooda ay gaarsiiyaan dadka ehelku ma isku dayeen arrintaas wallaahi fursad bay ahayd oo aniga laftigaygu waa u soo jeediyey markay fariimihii soo gaaraan in arrintaa laga shaqeeyo oo dadka ehelka ay isbartaan laakiin dhibta jirtaba waxay tahay dadkii ismana yaqaaniin soomaalidu meelo kala badan bay ku firaqsan tahay waxaanse hubaa oo lee xaqiijiyey oo qof xildhibaan ah ii sheegay inay xildhibaano dhowra oo tiro maaragtay ilaa 4-5 ay isku heleen marka ay u tegayeen xafiiska wasiirka arrimaha dibadda dhallinyaradaas ay u matalayeen oo meelaha kala duwan kasoo jeedana inay xildhibaano u ahaayeen xildhibaanadaas oo tusaale kasoo qaad kuwa koonfur kasoo jeeda iyo kuwa maaragtay kasoo jeeda meesha la yidhaahdo gobollada kaleeto ee dalka sida waqooyiga iyo waqooyi bari oo yana dhinaca kale ah iyo dhammaantood inay xildhibaano ahaayeen matalaya dadkii xirnaa sidoo kale wuxuu ii sheegay in ehliyadda qaar ka mid ay muqdisho kula kulmeen oo yana cabashadan qabaan oo dadkan cabanaya qaarkood ay reer muqdisho yihiin oo awlaaddoodii ama dhallinyaradoodii ay halkaa ku xiran tahay marka ma jiro saan filayo group ama maaragtay meel ku wada xiriiraan oo maaragtay xogta ku kala qaataan dadka ehelkaahi laakiin haddana waa lays yaqaanaa oo dadku maaragtay soomaalidu marna waa reero marna waa deegaan marka labadaba way isku garanayaan dadka xiran oo ehelku ku xiran yahay iyo xataa kuwa xiran laftigooda oo markii habeen hore wiilka ama habeen saddexaad wiilka la kaxeeyey markiiba way soo sheegeen reerkiisa iyo deegaanku kasoo jeedo wayna la hadleen nasiib wanaag oo iyaga laftigooda malaal gargaar isku fidanaya ama istaageeraya wixii ay samayn karaano qoladii xabsiga ku hartay baa reerkii uga warbixisay oo tiri wiilka haddana laga kaxeeyo wuxuu mudan doonaana garan mayno marka xiriir noocaas ay ugu jira oo heliyadda iyo udhaxaysa iyo xataa mas-uuliyiinta intaba waa tahay maxamuud waa maasan tahay magacyadooda af carabi ku qoran iyo sanadaha la xiray iyo xukunadoodana waad ila walaagtay shaashadda waan soo saari doonaa ugu dambayntii muxuu yahay baaqa aad u dirayso haddii muuqaalkan uu gaaro madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha
ama mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba oo xildhibaanada iyo wasiiradaba ay ku jiraan baaqaada ugu dambeeya oo aad dowladda Soomaaliya aad u dirayso oo arrintan inay wax ka qabtaan muxuu yahay? waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto cilmiyow dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna aan ku gaarsiiyo horta dhimasho waa wada sugaynaa oo dadku way dhiman karaan waana la dili karaa wax ceeba maaha waana la sugayaayo dee wax laga baaqsan karo ma aha oo adduunkii ka dhacaysa maalin walba laakiin dadka Soomaaliyeed oo maxaabiista ah waxaan rabaa inaan hadalkayga laba qodob ku soo ururiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro Soomaaliyeed ciqaab in ugu filan xabsigay ku qaateen oo qofka 6 sano ka hor la xiray waa dareemaysaa in moralkiisa iyo maaragtay waxa iska bedelay noloshiisa hadda say tahay fursadna aan loo siinin inuu noloshiisa xabsiga waxa loo galaa in qofku dhaqan celin uu maaragtay sameeyo oo isbedel uu ku sameeyo isbedelna aan loo siinin in noloshooda ku sameeyaan mid waxbarasho iyo mid maaragtay wixii lagu soo xiray nooc ahaaba marka waxaan jeedinayaa oo baaqaygu yahay dadka Soomaaliyeed oo halka ku xiran ciqaab iyo maaragtay dib in ugu filan way soo mareen intii la dayici kareen waa la soo dayacay wixii hadda xukun ku dhacay oo xukunkoodii uu soo wili fulinay nool daqiiqada ay nool yihiin micna u sameynaysaa in wixii la tari karo la taro dadka Soomaaliyeed guud ahaan cid kastoo arrinta farsamo ahaan u geli karta aqoon ahaan u geli karta inay wixii ay tari karto tarto inta haddii laga yimaado dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waxa ku darayaa oo qodobka hore ku xoojinaya dowladuhu hal qof iyo laba qof oo la xiray ama la kala tarxiilay ama si loo yeelo ayaa xiriirkooda ku xumaada inana maanta waxaan ka hadlaynaa boqolaal dhalinyaro ah Soomaaliyeed baa ka hadlaynaa oo Sacuudiga oo waddan walaalanahay oo runtii sanad walba xujeedeenu tagto oo ay maaragtay xaaladooda iyo ganacsadeenu tagto oo mas'uuliyiinteenu tagaan oo xiriirkeenu yahay xiriir islaamnimada iyo dhaqanka ka sukow mid runtii ka sukaya dowladaha kale in intaas ba wadaagno waxaan u soo jeedinayaa haddii falkaasi uu noqdo fal ay fuliyaan oo ay ku dhaqmaan in fiiro gaar loo yeesho oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in arrintaas inaysan arrin qalad ahayn arrin aynu ka filan karnana aysan ahayn waxaan ku soo dhamaynayaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarahana uu ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre iyo guud ahaan kabinetkooda ama maaragtay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka intaba oo laga yaabo inay isku mid yihiin oo wasiiradu ay baarlamaankana joogaan waxaan rabaa inaan iraahdo dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiin baa u tihiin waa dadka aad u dhaarateen waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan bay ka anfici lahaayeen kaan isagu xooggiisa waxaynu ku tarin wuxuu idin dhali lahaa wiilal iyo gabdho halyeeyaa oo qarankan difaaca waxaan tusaalaha u soo qaadanayaa hadalka u leeyahay حتى هذا لو مش يسوى حين ترين وحول لا وحين تري لها أو ما ركت وحين يسوى كردين لها هذا يلسننا أو هو أركننا إن من حد جاي أو مقادرات يدب يستي أو ما ركت برامج كتير هو أركننا يهين المواطنين Soomaaliyeed ويستاهلون نرش هذا إن لبدباديو وحال الله ترى بحيث طبعا كتان لأننا لحنا يصدق لقفة وهذا حبسي كتير أو كحكم إن الدلدلو لم يرد وحي أثر كتان ترى لم يرد وحي أعضو طبعا كتان أقطع waad awoodaan oo waxay ku siman tahay cafis aad u weydiisaneen boqortooyada Sacuudiga waad awoodaan inaad qareemo u qabataan waad awoodaan inaad dowladda diblomaasiyad uga hadashaan oo ka sukaysa yani walaalnimada iyo wixii aynu wadaagnay oo aad uga codsataan in dhalinyaradaas il naxariis lagu eego xabsiga ay ku jiraan lagu bedelo cafis iyo inay kuwii jeclaa mar dambe la midoobaan noloshoodiina dib u bilaabaan marka walaal farinta aan dirayaa labadaas dhinac ayay taabanaysaa wiilashaasna xabsiga ku jirana waxaan leeyahay walaalayaal wixii awoodnay waa idin samaynay intii tabartayada ahayd idinkuna niyadda khayr u sheega ogsoonaadana waqti xumi waa jiraan laakiin ma ku dhamaysan doontaan in noloshiina insha Allah maalin un baa ilaahay faraj idin furi doonaa oo aad ka soo bixi doontaan meesha aad ku jirtaan ilaahayna nasri iyo naxariis idin ku bedeli doono aad iyo aad u mahadsantahay Maxamuud waxaan filayaa fariintaadaasi inay gaari doonto shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee kala duwan oo iyaguna